halkani waa BBC oo London idinkaga imaanaysa aadna ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada barta internetka aynu ku leelnahay ee bbcsomali.com iyo weliba Facebook. kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada inaga daawanaysay iyo akhyaarta hawada inagala socotay ee raadiyaha inaga dhageysanaya. barnaamijka dooda jimcaha ee galabta ayaynu goordhow u gudagali doonaa hase ahaatee qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo si kulul u cambaaraysay tallaabada midowda yurub uu ku taageerayo dowladda ingiriiska arrinta ku aadan ninkii basaaska ahaa ee lagu sameeyey koonfurta England iyo nin daacish sheegtay inuu ka tirsan yahay oo dalkaasi Faransiiska ka geystay dhimasho iyo dhaawac iyo weliba qafaal ama afduubasho. sidoo kale barnaamijka dooda jimcaha ee maanta waxaynu ku eegaynaa arrimaha wax ka beddelka iyo dib u eegista dastuurka ee Soomaaliya iyadoo qodobo badan aynu markaa faaqidi doono. waxaase si gaar ah aynu u eegi doonaa ma la jooga mase tahay xilligii laga hadli lahaa yaa Soomaali ah. arrintaasi waxaa falanqayn doona khubarada barnaamijka maanta ka qayb galaysa hase ahaatee dhegeystayaasha BBC-da ayaguna fikirkooda waxa ay ka leeyihiin. qodobka ka hadlaya yaa Soomaali ah waxa ay ila tahay mid aan sax ahayn waayo dastuurku ka hadli maayo wadan kale taasina waxa ay shaki gelinaysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed. runtii anigu waxa soo jeedin lahayd awoodda badan la saaro khilaafka dhex mara madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare oo noqday mid tagaadiyay hawshii xukuumadda. qodobadaas ayaa barnaamijka ku faaqidi doona. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaa barnaamijka isku soo dhaway. halkani waa London. saacadii waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka wararka BBC-da waxaa inoo waramaya cabdirasaaq maxamed siraad. mahadsanid mawliid. wararka imanaya koonfurta galbeed ee waddanka Faransiiska ayaa waxa ay sheegayaan ugu yaraan 2 qof in toogasho lagu dilay qaar kalena ay dhaawacmeen kadib markii nin uu rasaas ku furay afduubna uu sameeyey isaga oo soo galay dukaan weyn oo wax lagu iibiyo magaalada Taqbe. dad kale ayaa halkaa ku dhaawacmay waxaana la sheegay ciidamada gaarka ee Faransiiska in goobta la geeyey. ninkaasi afduubka sameeyey iyo rasaas dad ku furay waxa uu sheegay daacad inuu u yahay dowladda islaamiga ah. waxaana lagu soo waramayaa in uu doonayo in la sii daayo nin xidhan oo lagu magacaabo Saalax Cabdisalaam oo laga shakisan yahay inuu ka dambeeyey rasaastii iyo qaraxii bambooyinka ee Paris ka dhacay 2015. waxaana la sheegay ka hor inuu rasaas ku fulay dad boliisa oo la sheegay inay orod ku jimicsanayeen magaalada Carcassonne waxaana la sheegay mid halkaa inuu ku dhaawacmay. madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa waxa uu la kulmay 106 gabdho ah iyo wiil la sheegay Arbacadii inay sii daayeen kooxaha islaamiyiinta ee Boko Haram. gabdhaha badidooda waxaa laga afduubay dugsiga ay ku jireen magaalada Dabchi bishii ina soo dhaaftay. 4 ka mid ah waxaa la sheegay waaxyahoodu inay jajabnaayeen. Buhari waxa uu u sheegay carruurtaasi in ay wadan karaan wixii ay doonayeen eryadooda ahaa iyaga oo aan baqanayn in rabshada lagu sameeyo. waxaana la sheegay dhinaca caafimaadka in la geyn doono magaalada Abuja oo halkaasi lagu daweyn doono dabeedna loo ogolaan doono guryahoodii inay ku noqdaan. ruushku waxa uu sheegay midowda Yurub tallaabada ay qaadayaan ee ah halganka lagaga soo horjeedo ruushku inay tahay mid ay ka dambeeyaan Britain iyo Mareykanku. isagoo ka hadlay arrimaha ku lug leh EU-da ayaa waxaa la sheegay inay ku dhawaaqeen ururka midowda Yurub danjirihii u matalayay iyaga inay ka soo celiyaan magaalada Moscow. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka nin ka hadlay ayaa waxa uu sheegay Washington iyo London in ay doonayaan in ay joojiyaan horumarka ruushku ay la gaadheen Yurub. isagoo qabtay shir dhinaca jaraa'idka ayaa afhayeen u hadlay wasaaraddaasi Anton Kozin waxa uu cambaareeyey tallaabada ay qaadeen Yurub.
waa ayaan darro in midowda yurub ay iyaguna gaadheen go'aan ah mid ruushka lagaga soo hor jeedo kaasi oo ka imanaya ololaha ay london ku hayso dalka ruushka oo la rabo in lagu caqabadeeyo xidhiir fiican oo dhex mara dadka ku nool qaaraddan yurub. koox la sheegay indhaha inay ku hayaan arrimaha dalka suuriya ayaa waxa ay sheegeen ugu yaraan 40 qof oo rayidii in ay dhinteen markii dayuuradaha ruushku ay duqeeyeen meelo ku yaala bariga quuta ee ku dhow magaalada dimashq. ururkaas oo eega dhinaca xuquuqda bini'aadmiga ee suuriya ayaa waxa ay sheegayeen dadka rayidka ee dhintay inay ku jireen meel dhismo dhulka hoostiisa ah magaalada carbiin, waxaana la sheegay inay tahay meesha hadhay ee kooxa fallaagiya ay haystaan kooxda lagu magacaabo falaaquraxmaan. afhayeen u hadlay ururkaasi ayaa waxa uu sheegay qaramada midoobay dhexdhexaadin in ay waddo in ay goobtaa ka baxaan, waxaanay ahayd in la meermariyay maalintii khamiistii. ruushku waxaa la sheegay in ay duqayn ku hayaan bariga quuta. iiraaniyiintu waxay cambaareeyeen magacaabidda madaxweynaha maraykanka trump uu u magacaabay john bolton inuu noqdo la taliyihiisa cusub ee dhinaca ammaanka. aqalka lagu magacaabo aqalka odayaasha madaxdooda cabbaas cali khadkhuday ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabada bolton lagu magacaabay in ay tahay mid meesha la keenayo nin abaabula argagixisanimada, isagoo ay sheegeen inuu taageersan yahay koox mucaarid ku ah waddankaasi iiraan oo la yidhaahdo MEK. dhowr ka tirsan baarlamanka waddanka israa'iil ayaa soo dhoweeyey magacaabiddan oo ku tilmaamay bolton inuu yahay saaxiib wanaagsan oo israa'iil ay leedahay. gabar sare oo ka tirsan ururka falastiiniyiinta hanaan ashraawi ayaa waxa ay ku tilmaantay bolton oo loo magacaabay jagadaasi in uu yahay nin taageersan yuhuudda xagjirka ah, kiristaanka xagjirka ah iyo dadka cad ee midab kala sooca ku shaqeeya. nin ka tirsan golaha islaamiga ee waddankaasi maraykanka oo la yidhaahdo ibraahim huba ayaa waxa uu ku tilmaamay magacaabiddan inay tahay jaga aan u qalmin. waa dhibaato in shakhsi leh aragtiyada noocan iyo talooyinkan siyaasadeed ee xagjirka ah oo darajo sare ka jooga maamulka trump uu caan ku noqdo islaam nacayb iyo in dadka caddaanka ay yihiin dad sare. khatartu waxay tahay inuu dhaawacayo danaha dalkeenna ee adduunka iyo inuu qalalaase aan waxtar lahayn ka abuurayo adduunka. ra-iisul wasaaraha dalka maali ayaa waxa uu booqanayaa meel kooxa fallaagihii hore ay u haysan jireen magaalada kidaal ee ku taalla waqooyiga dalka. sumayliw baabuumeyga ayaa waxa uu dib u dhigay maalin socdaalkii halka uu ku tegi lahaa, iyada oo la sheegay saldhigyo ay leeyihiin qaramada midoobay iyo faransiisku in gantaalo lagu soo weeraray. 5 ciidamada waddanka faransiiska ayaa halkaa ku dhaawacmay. waa ninkii ugu darajada sarreeyey ee reer maaliye ee taga gidaal 4 sannadood ee ugu dambaysay, wakhtigaasoo la sheegay ciidamada maali kooxa fallaagadihii inay ku dileen ilaa 60 ka mida. cabdirasaaq xaaji maxamed siraad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxa uu inala socodsiinayay wararka BBC da. halkani waa london. maalin wanaagsan sida aad u dhantihiin akhyaarta hawada sida tooska ee nagala socda iyo kuwa facebooka inaga daawanaya. sidii aan ku sheegay horedhaca barnaamijka, waxaynu maanta barnaamijkeenna ku soo qaadan doonaa arrimaha ku aadan dib u eegista lagu samaynayo dastuurka Soomaaliya ee haatan hawshiisu ay socoto, iyadoo qodobo kala duwan aynu barnaamijka ku faaqidi doono. waxaynu isweydiin doonaa ilaa iyo hadda maxaa qabsoomay. waxaan kaloo isweydiinaynaa ma tahay wax u baahan in laga hadlo amaba haatan la joogo xilligii munaasibka ku ahayd in la yidhaahdo yaa Soomaali ah, oo ayba dhici karto in dastuurka ama lagu qoro ama lagu qorinba. sidoo kale dastuurkan hadda dib u eegista lagu samaynayo ma noqon doonaa mid loo dhan yahay oo ka shaqaynaya danaha dadka Soomaalida. waxaynu sidoo kale eegi doonaa ilaa iyo hadda maxaa caqabadaha oo jira, maxaase gudboon. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cabdi Xoosh Jibriil oo qareen isla markaasna ah wasiirka arrimaha dastuurka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. qadka telefoonka iyo magaalada Muqdisho kaga jira.
sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaysa faadumo diiriye oo ka tirsan ururada bulshada ee soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada puntland iyo cabdi muuse oo ah agaasimaha ururka la yidhaahdo friends of home foundation oo ah urur ka qayb qaata taabagelinta arrimaha dadka rayidka shaqaalaha rayidka ee soomaalida gacan ka geysta caawintooda isla markaasna u dhaqaaqa arrimaha soomaalida injineer yarow shariif ibraahim ayaa sidoo kale barnaamij ka qayb qaadanaya oo isaguna ka mid a ururada bulshada rayidka isla markaasna qayb ka qayb qaata arrimaha u ololeynta soomaalida aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ugu horreyn waxaan jeclahay inaan soo dhoweeyo asxaabta inaga maqan gaar ahaan wasiirka wasiir marka hore barnaamijka intayn u guda gelin soo dhowow aad baad u mahadsan tahay waa yahay faadumo diiriye sidoo kale aan soo dhoweeyo faadumo adigana waa yahay faadumo waynu ku soo laaban doonaa waa yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijka ayuunu horey u gudageli doonaa dhegeystayaashana qeybba ka yihiin wixii su-aala aad qabtaan bartan facebook ayaad ku soo qori kartaan oo aad markaa jecesha inaad weydiisaan wasiirka ama xubnaha kale ee barnaamijka ka qayb qaadanaya sidoo kale ra'yigeenna waa soo gudbin kartaan intii ra'yigooda soo duubtay oo aynu ka gaarnana waynu soo gudbin doonaa waxaan jeclaa inaan ku bilaabo wasiir cabdi xoosh wasiir adigoo aad iyo aad u mahadsan hawshii dastuurka ee dib u eegistu ilaa iyo hadda xaggee maraysa haddii aad si kooban warbixin u siiso dhegeystayaasha iyo daawadayaasha waa mahadsan tahay mawlid waana salaamaya dhegeystayaasha hawshii meel fiican ay maraysaa saa la socoteen sanadkii lasoo dhaafay waxaan ku mashquulsanayn inaan dhisnaa xiriirka u dhexeeya hay-adaha saamiga ku leh dib u eegista dastuurka si uusan u imaanin khilaafaad marka waxaan sameynaa waxay ahayd inaan xiriir fiican la sameynaa wasaaradaha dastuurka oo maamul goboleedyada ama dowladaha xubinta ka ah federal systemka ururada bulshada ah iyo guddiyada dastuuriga ah oo iyagana saami ku leh marka intaasaan ka shaqaynayna sababtaan uga shaqaynayn wax kale ma ahayn dad badan aan la weydi waxay yidhahdaan waxaan dhaha intaas waa safara ku jirtiin waxaad tegaysiin garowe iyo baydhabo iyo jowhar iyo ujeedada ka dambaysan waxa waaye wixii lagu soo jabay hore loogu soo jabay oo lagu soo mataqaanaa fashilmay inaan ka leexano oo ahaa awal dib u eegista dastuurka markii la sameynayay kasoo bilaabo 2005 6 ilaa hadda waxay ahayd khilaafaada laga bixi waayo khilaafaadka waxa looga bixi waayo daraasaan ku sameynay daraasadan waxay noqotay in hay-adaha saamiga ku leh inay isla sameeyaan dastuurka uusan xiriir ka dhexaynin marka sanadkan waxaan ku mashquulsanen inaan dhisnaa xiriir fiican aan dhisnay waxaan sameynay madasha wasaaradaha dastuurka oo maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ah waxaan xiriir la sameynay aan la seexanay is-afgarad iyo road map la seexanay ama tubta la raaci lahaa labada guddi oo dastuuriga ah kan madaxa banaan iyo kan baarlamaanka ah waxaan kaloo mucaahado fiican la samaysano wada shaqeynaa ururada bulshada ah intaas intaan haysano meelaan gaari karnaa marka hadda waxaan ka shaqeynayna waxaad inaan helna horta yani is-afgarad sidii hore loogu socon lahaa waya wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaas qadka ugu jir waan kugu soo laaban doonaa ururada bulshada rayidka ayaa soo hadal qaaday iyo kaalinta la tashiga ee aad la samaynaysaan faadumo diiri ayaa ka mid a ururadaasi bulshada rayidka qadka teleefonka magaalada garowe ayay ku jirtaa faadumo wasiirka waad maqlaysay adigoo aad u mahadsan aan kusoo dhoweynayno dastuurkan uu ka hadlayo dib eegista la samaynayo wasiirka iyo guddiyadan haddii la kala tashaday ma aaminsan tihiin inuu yahay dastuur loo dhan yahay isla markaasna noqon kara mid ka shaqaynaya danaha dadka soomaalida faadumo waa yahay faadumo diiriye
waa mahadsan tahay raalli ahaada dhegeystayaal iyo daawadayaal waan ku soo laaban doonaa waxaan jeclaa marka inaan siiyo injineer yarow wasiirka waad maqlaysay su-aashii aan weydiiyey faadumo ayaa adigana ku weydiinaya bacdama aad ka mid tahay bulshada rayidka arrimaha soomaalidana aad u dhaqaaqdo ma ku muuqataa inuu yahay dastuurkan la tashigiisa hadda la wado inuu yahay mid loo dhan yahay runtii horta waa salaamantiin intii dhegaysanaysa iyo idinkana aadan idinku maxcelina fursaddan aad isiiseen wasiirka waxaa afkiisa ka soo yara hay-adaha saamiga ku leh I don't know marka Soomaaliya dhibaataa dhacday lixdameydii ilaa hadda dhibaataa ka jirta dastuurkan oo markii diyaarintiisii hore iyo kan dambe qolo oo u badan 50% ama 60% aan waxba ka ogeyn bise wax u socdaan for this reason marka wasiirku waxaan weydiisanayaa markii oo dastuur laga hadlayo maadaama ummadda saamayso sidii oo shareecadda oo kala haga ummaddaasi dadkooda ay ka qayb qaataan si berito markii oo la sameeyo afti la sameeyo ay uga doodi karaan miyayse ku muuqan su-aasheeda adoo ka jawaabaya injineer yarow adigoo aad u mahadsan ma ku muuqata in loo dhan yahay la tashiga la wado no sabab inkastoo wasiirku ka jawaabi doono maya sababtu waxa weeye horta waddankaas waxaa degan beeraley iyo xoolo dhaqato oo ayaga lafdhabarkii dalka ah oo wax xuquuq ay leeyihiin dastuur u sheegaya oo madaafacay uusan jirin wasiirkan waa og yahay taa for this reason annaga Soomaali waxaan rabnaa ayadoo mid ah oo gacantooda dadka sheegaysi adoo raali injineer yarow dadka beeraleyda oo jareerta ah waxaad ka wadaa xuquuqdoodii dastuurku ma siinayaa ma siinayo wasiirka ayaan siinayaa wasiir raaliga ahaada cabdi muuse iyo faaduma wasiir adoo ii soo koobaya jawaabtaas adoo raaliya jawaabta aan siinayo horta waxa waaye wasaaradda markaan bilownay ma aha keliya inaan ururada bulshada iyo maamul goboleedyada iyo keliya inaan la tashanin waxaan la tashanaynay dadka aan u bixinay xuquuq raadiska dadka ah ama equity seeking groups oo ay ka mid yihiin dadka hadda ninkan odaga ah injineerka oo kaleeto uu hadda leeyahay yani groupkaasaan ka tirsanahay dadkan naafada ah dumarka kulli waxaan lanahay saaxiibaan lanahay waa injineerka inuu ogaado waayo agaasimahayga guud ee wasaaradda iyo shaqaalaha ugu badan waa not only inay jaran yihiin mashiidla waa jawhar ah marka ayagaana runtiiba yani interest weyn u haya taas annagana waxaan sameynay shirar weyn aan la yeelanaa jawhar aan tagnay meel walba aan tagnana yani dadka aan u bixina xuquuq raadiska ah waa u yeernaa waa la fadhiisanaa dadka loogu mataqaanaa activeka ah waxa waaye hadda jalalweyne sidoo kale jalalweyne keliya ma aha waxa waaye waxaa jiraan dadyo kaleeto hore loo takoori jiray ama dhibaato qabi jiray oo soo istaagay wallahayaan waxaan rabnaa in la tusto waayahay waxaan filayaa wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay injineer yaro waxaan filayaa in jawaabtaadii wasiirku ku siiyay waxaan jeclaan lahaa barnaamijka inuu naga noqdo barnaamij si guud aan uga hadlayno arrimahan dib u eegista uusan naga noqon inaynu si gaara u fiirino qowmiyad ama deegaan ama dad ama si kale aan u fiirino aad iyo aad baad mahadsantihiin faadumo ayaan ku laabanaya faadumo haddaad maqlaysay su-aashaan ku weydiiyey iyo arrintan ururada bulshada rayidka uu wasiirku ka hadlay inkastoo dhinaca dumarkana aynu jecelnahay inaad naga siisid bal ilaa hadda waxa tala idinka siiya arrintaasi laakiin si guud ururada bulshada rayidka ma ku muuqataa inuu yahay la tashi iyo wada tashi loo dhan yahay haddii dastuurka wax laga bedelayo ma ku qanacsantihiin arrintaa walaal horta su-aashii ma aan maqlaynin waa idinka go'ay hadda intii u dambeysay oo ninkii u dambeeyey hadlayay un baan idinku soo gaaray cabaar baa iga maqnaydeen horta waa aniga Faadumo Diiriye Nuur ururada bulshada ururka Soonfalka Kenya ka ah tala wadaagna network ka ah isagana gudoomiye ku-xigeen waxaan ka shaqaynaynay muddo arrinta intii hadda aan kala socdo xoosh wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dibadda waxay yimaadeen oo muddo ka shaqaynayeen gobolada dhan shirar xamarna waan kala qayb galay halkaana way noogu yimaadeen run ahaantii arrin aad iyo aad u fiican bay wadeen laakiin waxaad moodaa in aan lagu taagan yahay oo qaybihii maxaan ku dhahaa guddiyada dastuurka oo xagga baarlamaanka ama ha noqoto guddiyadii kale madaxa banaanaa oo dastuurka inaan lala shaqaynayn baa anigu dareemin ahaan Faadumo ahaan aniga ra'yigayga inuu khaldan yahay maxaad Faadumo adoo raalliya maxaad dhaliilsan tahay
maxaad aaminsan tahay inay wax ka dhiman yihiin wasiirkii waa ku maqlayaa inkastoo aynu jeclahay in si guud mawduucan looga bixin waxaan dhaliilsanahay dastuurku yani wuu jiitamayay iyadoo laleeyahay wasiirku ka hadlaayo oo qof duqeynaya hadda ay soo galay yani waxa waaye dastuurka sida ay wasaaradda hadda u wado so far is good waa fiican yahay waa dadaal wax walbana haddaan wada jir loo qaban oo aan loo dadaalin yani ma hagaagaan waxa anaga qabsana ma noo qabsoomayaan runta markaan ka hadlo yani waxaa laga eegayaa laga filayaa in dhaqaale lagu raadiyo dhaqaale laga helo waxyaaba noocaasa waxaan dareemayaa inuu jiitamayo wuxuu la jiitamayaana waa qolyihii xagga sharci dejinta ama dastuurka ku shaqa lahaa in ay ku dhegan yihiin baa aniga ii muuqata shirar badan aan ka qayb galay waxyaalo badan oo turxaan bixina xagga baarlamaanka iyo xagga guddiyada dastuurka oo iyaguna ka shaqeeya madaxa bannaan aad baad faad u mahadsan tahay si fiican baan usoo geli doonaa meelahaasi oo dhan xagga dumarka markaad fiiriso xuquuqda dumarka inta aad og tahay oo la tashiyadana kala sameeyey lasoo bandhigay ma ku qanacdeen tashiyadii waan ku qanacnay laakiin waxaan aaminsanahay inay weli wax dhiman yihiin tashiyo badan baa la sameeyey dumarka gooni baa loola kulmay curyaamada gooni baa loola kulmay dhalinyarada gooni baa loola kulmay aqoon-yahanada gooni baa loola kulmay dad badan baa dibadda laga keenay oo weliba inkastuusan kaas hirgelin dal iyo dibadda laysu keenay oo laga hadlayay dastuurka iyo dardargelintiisa iyo meeshuu maanta marayo inay ogaadaan dadku run ahaantii arrin fiican baa la qabtay laakiin haddana mar walbaba waxaa jira caqabado hor taagan oo wixii markay ay toos xiriir u dhacaan maxaa ka maqan dumarka waxyaalaha is leedahay dumarka waa ka maqan yihiin absolutely intaan ka aragnay aad iyo aad buu noogu dadaalay guddiga dastuurku waa mahadsantahay waayahay aad iyo aad baad umahadsantahay faaduma saas iigu jira adoo raalliya stuudiyaha b b c da london ayaan usoo wareegaya cabdi muuse raalliga ahow aad baan kaaga mahad celinaya samirkaaga waad maqlaysay dooda socotay wasiirka jawaabihiisii iyo dareenka la muujiyey adigu waxaad ka mid ahayd dadka soomaalida ee degan magaalada london ee ay la shireen markii la raadinayay la tashiyada dadka qurba joogta ah waxyaalihii laidin soo gudbiyey iyo waxyaalaha aad ku qanacdeen iyo waxyaabaha is leedahay waxbaad ka qabtaan ama aad gudbiseen maxaa ka mid ah marka hore waxaan salaamayaa dadka soomaalida ah oo dhan kuwana dhegaysanaya iyo kuwana daawanaya iyo dhammaantoodba waxaan kaloo salaamayaa martida igula jirta programka ama barnaamijka igula jirta waxaan kaloo salaamayaa shaqaalaheena b b c da waxa fiicnaan lahayd baan u malaynayaa maadaama dad badan oo soomaaliya ayaan helin fursadda inay ku yimaadaan b b c da oo halkaan stuudiyahan ama telefoonka ka qayb qaataan in doodeennu ay ahaato dood wax wanaajinaysa oo ummadda soomaaliyeed oo aan u helin fursadda u helin halkaan inay yimaadaan in markaa wax dhegahoodu u cuntama ama u qalma loo sheego wasaaraddu halkan way timid 2 shir baan kala qayb galay dad badan baa yimi oo kala duwan oo marka hore waxaan horta u mahad celinaya wasaaraddu inay timaado oo ay xiisayso dadka inay la kulanto bulshada degan dibadda degan inay la kulanto wax fiican weeye dadku waxyaalaha ay ka hadlayeen waxa ka mid ahaa in ay tahay in dib loo qoro ama dib loo eego jinsiyadda Soomaaliga taas runtii yaab bay ku noqotay dad badan oo Soomaali ah marka arintaas waa arin xasaasi ah doodo badan laga galay yaa Soomaaliya laga hadlay yaa Soomaali ah dastuurka waxa ku qoran waxaan aqrinayaa dastuurka soo xiganaya qodobka 8aad farqadiisa 2aad jinsiga Soomaaliyeed waa mid qura haddii intaa lagu daayo waa wax sax ah sababta wuxuu u dhadhamayaa Soomaaligu inuu yahay isir ma fahante marka waxa fiicnaan lahayd intaa in lagu daayo laakiin waxa ku qoran sharci gaar ah oo ay soo saaraan golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa xadidaya sida lagu helayo lagu laalayo ama lagu waayayo sida lagu helayo waa gooni wax fiican oo in laga hadlo ay tahay way dastuurkan in dib loo eego gabadhii Faadimo Diiriye waxyaalaha la qabaa jira dastuurkan dad badan baan rabin inuu dhamaado dad badan oo dana kale Soomaaliya ayaan doonayn inuu dhamaado sabab badan awgeed dadkaasoo isugu jira ajnabi iyo Soomaali dadkaasoo sharcigu hadhow xakamayn doono haddii dastuurka si sax loo qoro
xakamayntaasna dad badan baa ka soo horjeeda inaan dhammaanno waa dad badan baa ka shaqaynaya oo raba laakiin way dhammaanaysaa insha allah wax walba bilow bay leeyihiin anoo dib ugu laabanaya tusaalaha waxay siisaa arrinta jinsiyadda ka hadasho waxaa tiri sida lagu noqonayo qof Soomaali ah si gaar ah weeye doodka ma qabtay maxaad marka adigu ku muuqdo dhalishan tahay waxa ii muuqdo aan dhalisanahay 2018 in laga hadlo Soomaaliya ah ama yaa dhalasho qaadan kara wax way aad loo leeyahay inkastoo wali go'aan la gaarin laakiin waa wax in la soo qaada qaldanba sababtu waxay tahay qofka Soomaaliga kumanaan sana la yaqaanay waa isir Soomaaliya Soomaaligu waa isir qofka Soomaaliga in badan baa la yaqaanay hadda in la yiraahdo Soomaaliya in laga doodo dad ina ka badan oo baayna ku xeeran oo doonaya wadan fiican baynu haysanaa meel fiican ku yaala waa inaynu si sare u fikirnaa aynu yeelna aragti dheer waxaan gacanta ku hayno dastuurka ay wax 100 sano jiraya iyo ka badan jiraya inkastoo uusan ahayn wax noolo aan la bedeli karin dokumenti u yahay haddana saldhig baynu samaynaynaa jiilka soo socon saldhig u samaynaynaa saldhigaas waa inuu yahay mid si fiican looga fakiray oo dadkeena hadda ka hadlayo awoodda u yeeshay markay ilmahoodii ay akhriyaan ay yiraahdaan wallahi wax fiican bay nooga tageen haddaynu hadda dhaqso iyo boobsiis iyo caadifad iyo aynu ku samayno marka ma waxa ka wada qodobkaas yaamal soo hadal qaadin qofka Soomaaliga ah waa Soomaali meeshu doona ha joogo waxa la xadadi karaya tusaalan ku siinaya waxa haddii aad tiraahdo qofka Soomaaliga waa Soomaali anigu waxaan qabaa qofka Soomaaliga ah waa Soomaali hadduu waarid Soomaali dhalay hal waarid oo waarid kamid hadduu Soomaali yahay waa Soomaali baan aniga qabaa dad badan oo Soomaaliyaan arrinta qaba oo ila qaba sidee looga xadidayaa marka qof iska dhalay inuu madaxweyne noqdo sharciga xadidi kara waxa la soo qaadan karaa tusaale oranaya qofka madaxweynaha noqonaya waa inuu yahay qof labadiisa waarid Soomaali yihiin waa si simple ah Soomaali waa si fudud waayahay injineer yarow arrintaas oo ka hadlaya Cabdi Muuse inkastoo wasiirkan jecelahay inuu noo faahfaahiyo waxaan inay soo qabsoomaan inay jiraanba adigu maxay kula tahay in ma tahay xilligeedii ma la jooga in la yiraahdo yaa Soomaaliya oo dastuurka lagu qoro qofkaas halka ka yimid iyo qofka halka ku dhashay iyo qofka ba Soomaaliya in laga hadlo laga fakaro ma ku muuqataa anigu ay muuqataa boqolkiiba hay sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye horta Soomaalida waxaan u sheegayaa 1960kii dawladnimaan qaadanay waxaanu ku qaadanay in lagu ansixiyay dawladda Soomaaliya xuduudeedii iyo dadka ku nool taa haddii aniga aan raacno Soomaaliya waxaa jira dhibaatada jirta waxa weeye مثلا قومية الصومالية إيه صومالينimada is too much complex about wax isku qasan adoo noo faahfaahin inuu soo koobaya marka waxa weeye مثلا kadig dawlad haddii la yiraahdo citizen ma aha yani like waxa weeye waxa ka mid ah sida maaragtay shirkad oo kale aniga saami kule adigna saami kule ana isu kay keento shirkadaas kadibna oo anaga shantayna qof aan leenahay let me continue please marka shantayna aan leenahay af Soomaaliya igula hadlay engineer adoo raali ahaw marka shirkad oo kale waay oo aniga saami wada gashanay ama share wada gashanay macnaha waxa weeye walaalkayga hadduu yimaado shirkadaas sidoo rabo ugu dhaqmi karo dhibkina haasta waxa weeye anaga nin kasto oo Soomaali haddaanu wadankii aansan ku dhalan oo maaragtay aan inta muddo aan ku noolaa xagee ka wada wadankii Soomaaliya kala cadee wadanka Soomaaliya markaan leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Soomaaliland dastuurkii Soomaaliya wuxuu qabay dalkii la isku oran jiray dadka Soomaali weyn qofkii ah oo kale wuxuu 60kii dhigayay qofka ku dhashay ama Djibouti ama Gaarisa ama Jigjiga ama Muqdisho ama Hargeysa meesha doonta noqoto inuu Soomaali yahay ma taas adigu dood ka qabtaa haddii dastuurkii anaga UN-ka noo soo saxiixay oo anagana aan raali aan ku noqonay waxay ahayd Jamhuuriyadda Soomaaliya ayay ahayd xuduudaha jira ma aysan jirin maxaa marka dhalishantaa engineer ya maxaa dhaliilsan tahay ana waxaan dhaliilsanahay ragga maanta horboodii Soomaaliya tan iyo 60kii walaalahooda u yeerteen walaalahooda markay u yeerteen garab u yeesheen oo waliba badanaa burburkan Soomaaliya ay sabab ay u noqdeen ilaa hadda ta ma joogin adoo ga raaliya sug aan ku dhamaystiro marka walaal waxa weeye يعني أنا وحن ربا إن إرهدو دستورك إن لجهد له هذا ما هذا عديري فكر كإنجنيير ما واحد قبتها قفكي جمهورية الصومالية أو يونايتد نيشن أقون سنة قف كان كل لان الصومالية لجدقين معناه هذا موجود دامية ما بقى هبه
laakiin waxaynu ogeyn qowmiyaddii Soomaali wey laakiin Soomaali ma raalliga wasiirka adoo raalliga ahaanaya Cabdi Muuse waxaan dhihi lahaa injineerka waxaan dhihi lahaa dadka Ingiriiska oo South Africa 200 sano deganaa waa Ingiriis wali isirku wax kale weeye marka la fiiriyo maxaa la yiraahdaa isirku waa wax kale qofka Soomaaliga ahi waa Soomaali isir ahaan sida darteed askartii ka shaqeynaysay militarigii Soomaaliya qayb kamid ah ayaa dawladii Soomaaliya Djibouti markii xorriyadda qaateen ay siiyeen oo wali qaar joogan marka qofka Soomaaliga sidaas uu ahaa anigu waxaan qabaa sida inay ahaato hadeer in laga doodo ma ahanba sabab badan baa jira inta in looga doodin hadda raadiyaan fadhiya meel laga sheegi karo wax walba ma aha laakiin sabab badan baa jira dad qofka Soomaaliga in Soomaaliga lagu hayo waliba qaadashada dhalashadeena aad loo adkayo marka aad waxa qabtaa in sida loo daayo sida ahayd in loo daayo Soomaaliga waa isir baan qabaa raaliga saacada Afrikada waa 5 barkii wasiir Xoosh baan siinaya wasiir adaa arintii dastuurka gacanta ku haya guddi baa jira waxyaalo badan baa jeceshay in dib loo fiirsho dastuurkii hore laga yaabaa in wax laga bedelo waxyaalo cusub baa laga yaabaa inaad qaadataan waxyaabo kale laga yaabaa inaad soo kordhisaan kuwa sida u deenaysan horta bal arintan ma isku soo qaadeen dadka iyo dhageystayaasha iyo asxaabta ila fadhida adoo u kala cadeynaya horta waxaan rabaa inaan ku mahadiyo Faadumo Diiriye oo ah mataqaanaa ururada bulshada ugu waaweyn ee kamida wadanka shaqo fiican runtii nala qabatay arrintan hadda ay ka hadlayso ahayd khilaafaad jiro ururka ay ku jirto waxa la yiraahdaa PUNSA ururkaasi urur kale la yiraahdo Soshenza oo iyada ururkeeda waxa madax waa la yiraahdo Faisal Qaran urur kale jiro asna South Central oo ila Soshenza labadaba waxay ku dhex jireen sidii loo heshiin lahaa iyaga noo kala qaadayeen guddiga haddana waa heshiinay horta aad ugu mahadinahay Faadumo iyo Faisal iyo Diini oo shaqo fiican ka qabteen yani waxa arki jirnay ururo bulshada oo iyaga jawaabta bilaabana arki jirnay laakiin hadda waxaan soo gaarnay heer aan soo gaarnay yani qaangaarnimo ah ururo bulshada oo soo dhaweynaya hay'adihii dawliga ahaa marka taas horta aad ugu mahadinahay Faadumo arrintan kale oo mataqaanaa jinsiyadda ah runtii eegista dastuurka ma ku jirto wax la yiraahdo jinsiyadda inaan ka hadalno jinsiyadda waa ku qoran tahay article 8 wuxuu leeyahay hal jinsiyada jirto oo macnaheedu wuxuu yahay qof Soomaali citizen ah ma jiro mataqaanaa jinsiyad la yiraahdo koonfur galbeed waxa waaye deganaansho waa resident waa ama Puntland ama Jubaland hal muwaadin ajir waa Soomaali citizen waa sharciga laga soo saari lahaa sida adduunka ka jirto waa sharci in laga heshiiye ah baarlamaan inuu soo saaro marka dib u eegis dastuurka kuma jirto mana ka hadlayno hadda Cabdi Muuse ku raacsanayo lama gaarin اتحادkeedii lama gaarin in la tukada marka taas waxay noqonaysaa waqti oo habboon in laga hadlaa waxyaalo iska xasaasi isaga jiro waxyaalahaas personal anigoo kale hadda waxaan ahay aabaan ahay ilmo 30 jir aan dhalay oo ku dhashay Canada degan ka shaqaystaan af Soomaaliya ku hadlaan waxay jecel yihiin intii waxay u yimaadeen Soomaaliya waxay u yimaadeen fasax u yimaadeen waxaan jeclaan lahaa inay noqdaan citizen laakiin hal laga wada hadlo la waqtigeeda lama joogo hadda waayahay sida kaliya oo hadda ay relevant u tahay waxa waaye election hadii la galaayo taa laftigeeda waa la samayn karaa laakiin anigu ma qabo oo dib eegis dastuurka ma xirna dastuurka wuxuu leeyahay kaliya hal qof oo hal muwaadin jiro oo Soomaali ah qofna si siyaasadaysan loogama qaadi karo haddii for example Cabdi Muuse kaleeto uu siyaasad dawladda ka soo horjeedo in maxkamad la geeyo la yiraahdo ninkan muwaadin ma laga eeday wadanka lama samayn karo maxaa yeelay waa uu haystaa jinsiyad waxyaalahaas kala ku qorayna oo basic ah laakiin sharciga jinsiyadda sida Mareykanka waxay qabaan INS sharciga INS Canada wuxuu qabaa Canada Immigration Act waa sharciga baarlamaankeena dastuurka laguma qoro marka taas meeshaas uga tagaya maadaama ay xasaasiyad tahay ma rabo inaan dhex galo taas waaya wasiir adoo aad iyo aad u mahadsan marka dhegeystayaasha waxaad u cadaynaysaa in arrintan dastuurka aani ku jirin lagana hadlayn xilligan la joogo yaa Soomaaliya in calaamad su'aal la geliyo maya dastuurkan waa sida dastuurada adduunka dhan ka jirto wuxuu qeexi doonaa
yaa yani wuxuu qeexi doonaa inuu jiro hal jinsiyad oo soomaali ah in jinsiyadda aan qofna laga qaadi karin iyadoon loo marin si sharciyeysan aan loo marin inaan la siyaasadayn karin xagee bay ka timi marka arrintan adoo iga raaliya wasiir waxaad mas-uul baa tahay xukuumad ahaan dowladda soomaaliya inoo matelaya dastuurkiina gacanta ku haya xagee bay ka timid arrintan ah dastuurka waxaa laga yaabaa in lagu qoro yaa soomaaliya arrintaas xagee bay markii hore ka timid yaa noo keenay meel ay uga qoran tahay dastuurka lagu qoraa ma jirto meesha keliya oo ay ka timid shaqo ka timid mar hore bilaabatay ahayd waxay bilaabatay waktigii 2012 mudane xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha noqday ayaa waxaa lasoo jeediyay haddii la rabo in la aado tartan mataqaanaa doorashooyin waa in la qeexaa yaa ah soomaaliya marka sharci baa markaas lasoo daraafta galay lama geynin meel weyn lama geynin hadda baarlamaan weli mataqaana ma ag yaallo in laga fekero way tahay runtii maxaa yeelay ma rabtid markii oo doorasho la galayo qof zimbabwe ka yimid ama south africana inta diyaarad lagu soo qaado inuu qof kale u codeeyo ma rabtid taana waxyaalo badan ay ku xiran tahay yani laakiin wax wakti dheer u baahan waa waxay ku xiran tahay in la sameeyo IDyo in la sameeyaa waxyaalaha la yidhaha biometric ama indhaha faraha la iska qaado farihi waa laga tegay hadda waxaa la sameeyaa biometric waxaa la yidhahdo aqoonsi si loo helo waxaa kaloo dad badan ay sameeyaan magaalada qofku degan yahay meel uu deganaa si uu u codeeyo ama loo doorto wasiir adoo iga raaliya wasiir arrin baa cabdi muuse waan siinaya raalliga ahaada faadumana waan siinaya aad baan ugu raali gelinaya inay qadka cabaar ku yara daahdo wasiir waxaan inaan ku su-aalo arrinta soo hadal qaaday Zimbabwe dad Soomaaliya ma degana waxaynu ognahay dad Soomaaliyeed oo ku nool Ethiopia oo dowladdaasna ka tirsan kuwa Kenya degan oo dowladdaasna ka tirsan oo xilal ka hayo muwaadinimadooda haysta dad cirqi Soomaaliyeed ayaguna way jiraan oo Djibouti jooga marka waxa leedahay qofka ka yimaada Gaarisa iyo Jigjiga oo kale in la xadidaa fiican hadduu madaxweyne noqonayo sidaas miyaa hadalku maya kuma oran waxaan ku eray debate baa jiro dood baa jirta mana umalaynayo debatekaas inuu ku saabsan yahay qof Soomaaliya oo Gaarisa jooga iyo qof kale oo meel kale jooga waa mahadsantahay waxaan qabaa xasaasiyad kale laakiin waxaan ii sheegayaa أنا waxaan qabaa arrintan doodeeda waqtigeeda runtii ma aha maxaa yeelay dib u eegista dastuurka meel ay uga jirto ma jirto yaa muwaadin ah Soomaali ama looga hadlooyo meel ay xukuumadda agtaala ma jirto dood xukuumadda dhexdeeda dhex taalo la leeyahay yaa Soomaali ah ma jirto marka haddii mataqaanaa dad Soomaali oo qurbaha joogaan haddii ay ka qabaan mataqaanaa ay ka qabaan mataqaanaa shaki ka qabaan waa shaki bixinayna waxna hor yaalla maba ahaba hadda ajanda noo taalla ma aha ajanda noo taalla waxaa waaye in la yidhaahdo dastuurka waxaa ku qoran qodobka 8 hal jinsiyadaa jirto waxaa la yidhahdo Soomaali waa mahadsantahay wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay raalliga hada gabadha kelidood ka qayb qaadanaysa aan siiyo inkastoo dhegeystayaal ay jiraan gabdhaha ka qayb qaadanaya wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay sida aad nagu faahfaahisay iyo sida fufnaantii aad jawaabtay noo siisay waa kaaga mahad celinaynaa Faadumo ayaan u wareegayaa Garowe Faadumo haddaana qaldanayn dhalasho Soomaaliya maaha dhalasho kale aad haysataa arrintan wasiirku hadda uu ka hadlay uu leeyahay dadka Soomaalida ee dhalashooyin ka haysta Cabdi Muuse ku siin doona qudhaada waa kamid tahay walwal miyaad arrintaas ka qabteen adiga see kula tahay walaal run ahaantii horta walwal waa laga qabi karaa 1 million something I think above of Somali ayaa in ka badan 1 million waxna ku dhasheen hadda exactly daatada saxda ma hayo waxna ku dhasheen waxna ay iyagoo weyn tageen oo dhalasho qaateen anigu dadka iyagoo waa weyn oo iska dari ka baxay tagay baan hayo dhalashada qaatay laakiin ilmaheena yaryar ee ku dhashay maanta ku meel qurbaha kuma sii daynayno dhalashada ay haystaan markay yimaadaan toodan inay qaataan baa aniga aaminsanahay xaqna ay u leeyihiin haddii ay noqoto waxyaalaha kale oo ah markii madaxweyne loo noqonayo iyo haddii qofku dhalasho kale awaard kala dhalay ajnabi ah iyo taas qodobada waxaa samayn doona dastuurka marka la furo sheegay maaragtay wasiirku yacni baarlamaanka ayaa dejintooda sharci dejinta noo qaabilsan
wixii maaragtay qodobaa laakiin waxaan qabaa qof kasta oo Soomaali ah oo magaca Soomaali sheegta inuu Soomaali yahay xataa dadka kale inoo yimaada wadamadooda aan tagno iyagaba waana siiyaan dhalashada marka dadka xataa inoo yimaado shuruudaha ka soo baxay islaamka oo inagoo kala sida anagu usoo dhaweeyno la soo dhaweeyo dadka usoo dhaweeyo xataa waxaan qabaa aniga Soomaalida shuruudo in lagu xiro lagu siin karo aan haday iyagu rabaan oo ay qaadanayaan marka kale waxaa jirta in la xadado labada baasaboor aniga markaan dhalashada Jarmalka qaadanayay waxaa la yiri baasaboorka Soomaaliga ma dhigaysaa mise baasaboorka aad haysanaysaa 3 bilood bay igu qaadatay dib baa uga noqday inaan ka soo fakaro baasaboorkayga dhalashadeeda inaan dhiibo haddana waxaa jirtay waqtigii waxay ahayd dagaalka Soomaaliya sokeeye ka socday meela u noqda ma joogin carabahan ka soo galay marka waxaas oo dhan baa fikray danteydii baan eegay waxaan idhi waayahay wadankayga hadda ma jiro waa inaan ku noqdo waa qaadanaya kaygii baan dhiibay anigoo ka xun oo aad uga madluunsan maalinka xataa waan ooyayay aan dhiibay sawir baa jira hadda ay hayaan oo xataa laga duubay anoo markaa la ii dhiibayay ooyayay baasaboorkayga celinayay marka waxaas oo dhan waxa waaye wadan jacaylku qof kasta Soomaali waa ku jira wadankiisana inuu jeclaado oo maaragtay dhalashadiisa xajiyo dhalashadeeni wax ay maanta adduunka qiimo ka leedahay ma jirto runta markaan ku sheego laakiin maalinka sharciyo iyo nidaam ay dawladdu ka soo saarto oo sharciga la adkeeyo qiimo yeelanaysa qof walba wuxuu doonayaa inuu dhalashadeena qaato waxa maanta dadkeena ay u laayihiin inay dibad ku tagaan daawo oo loo baqayo inay joogaan iska dhiibaan yani waa baahida wadankeena ka jirta wadanka dastuurku ha shaqeeyo sharciga ha la dejiyo nidaamka wadanka ha lagu saxo oo dadka wadanka muwaadiniinta ay ka soo horjeeda hay naga daayaan dhibaatada iyo hagardaamada dadku mid ha noqdo Soomaaliya meel joogtaba waa mahadsan tahay Faaduma waan kugu soo laaban doonaa dhageystayaasha BBC-da qayb kamid ah ayaan siinayaa fikirkooda ay anoo aad iyo aad uga xun inaan mataqaanaa dhageystayaasha aan muddo aan siin fursad sidoo kale su'aalo ay qaarkood qabaan laakiin waxaan jeclahay su'aalaha intii macquul ah inaynu ka jawaabi karno dhageystayaasha aan eego magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho haddii aan fikirkayga ka dhiibto mawduuca dooda waan soo dhaweynayaa dib u eegista lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya waxayna ila tahay qodobo badan oo dood laga qabay isla markaana aan lagu qanacsanayn in laga bedeli doono sidoo kalena laga qayb galiyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed si uu u noqdo mid dhinacyo badan laga eegay isla markaana la isku raacsan yahay laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah qodobka ka hadlaya yaa Soomaali ah fikir ahaanteeda waxa ay ila tahay mid aan sax ahayn waayo dastuurku ka hadli maayo wadan kale taasina waxa ay shaki gelinaysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed waxayna ila tahay mid aan ku habboonayn waqtigani waad mahadsantihiin BBC assalaamu calaykum magacaygu waa Liban Ibrahim Karaama oo ka soo hadlay South Africa aad baan ku salaamay daadiyaha barnaamijka iyo waliba dadka martida ku ah runtii aad baan u soo dhaweynayaa in maanta dastuurka dalka wax laga bedelo mana la joogo xilli la yiraahdo yaa Soomaali ah yaa saahayn balse muhiimaddu waxay tahay in lagu soo daro qodobada dastuurka laga bedelay waxaan jeclaan lahaa in lagu soo daro qodob sheegaya mas'uulkii mooshinkaana ah mid aan macno lahayn amba qaranka lagu duminayo amba abuurayo colaad dagaaleed in meesha laga saaro qodob noocaas in lagu soo daran jeclaan lahaa Mawlid Xaaji Cabdi iyo dhammaan babahada BBC waan salaamayaa magacaygu waa Maxamed Abdi Axmed idinkala soo xiriiraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari runtii haddaan ra'yiga dhigto barnaamijka waxay la tahay bahda BBC-da aad baan ugu faraxsanahay dastuurka Soomaaliya dib loo eegayo waxa maanta Soomaaliya halkaa dhigay ama haysana waa dastuur la'aan iyadoo aan dastuur ku dhaqmayn burburka markuu dhacayba marka waxaan oran lahaa dastuurka in la furaa waa arrin muhiim ah waa in lagu dhaqsiyaa badan dastuurka loo furaa loo dhaqan gelin lahaa inaguna markaa Soomaaliya waxaan noo dhaxeeya sharci iyo qawaaniin iyo dastuur haddaan dastuurka la baalmarana waxa ay noqonaysaa oo kaliya in kala fardisnaado oo mar walba sida loo kala qaybsanaado waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha BBC-da iyo kuwaasi ahaayeen halkaad naga dhegeysanaysaan waa BBC sidoo kale barta Facebook ayaa naga daawanaysaan su'aalaha aad qabtaan halkan aad ku soo qori kartaan Cabdi Muuse waa mahadsantahay walaal waxaan rabay dadka Soomaalida in la wadaago aan u sheego wadanka aynu degannahay iyo meesha aynu ku naalna waa meel muhiim ah dadkeenna hadda nool baa go'aanka iska leh inaynu wax fiican u samayno dadka inay ka dambeeya wasiirka anoo u mahad celinaya waxaan weydiin lahaa qodobka labaad qodobka 8 ee sharciga jinsiyadda shacabka iyo jinsiyadaha qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay jinsiyadda Soomaaliyeed waa mid qura waa runtiis sharci gaar ah ayaa soo saaraya golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed ayaana xadidaya sida lagu helayo wasiirka waxaan ka codsan lahaa haddii dastuurka ay ku qoran tahay in
baarlamaanka federaalka ahi uu soo saari doono sharci ku saabsan sida lagu helayo jinsiyadda soomaaliga kaama naga ballan qaadayaa wasiirku hadduu isagu wakhtigaa joogo ama wasaaradaha kale oo imaan doonaa inay nagala tashadaan because qodobkaas waa muhiim dad yar baynu nahay meel fiican baynu ku naalnaa oo waddankeena ku yaalnaa dad badan baa ina ka badan baa deris ina la ah haddii la fududayo in jinsiyadda soomaaliga lagu helo si fudud waxay noqonaysaa 200 oo sano ka bacdi in layna kaga bato waddankeennii waddan sidaa yeelayaana ma jiro waddamadoo dhan waxaasay ka wasiirka kaaga jawaabi doona waa mahadsan tahay injineer yarow ayaan siinayaa injineer yarow doodda waad maqlaysaa dhegeystayaashu waad maqlaysay haye wallaahi runtii aniga kolley waxaan qabaa aas maaragtay dowlad casri aan nahay in la xadido citizenshipka sababta waxa weeye adi markaa samaynaysa national development plan qorshe horumarin oo qaran ha qorshe horumarin oo qaran waxaad ku salaynaysaa tirakoobka dadka aad haysatid even Soomaaliya maanta mushkilada haysato East African ACda inay loo diidan yahay dadkeena ma diiwaan galaysna qaar waxay ka imaanayaan Ethiopia qaar waxay ka imaanayaan maxaa la yiraahdaa Kenya qaarna waddankii joogan qaarna Djibouti ka imaanayaan up to now niman Djiboutiana ayaa baarlamaanka ku jira haddii ay jiri lahayd diiwaangelin dhab ah oo waddanka aan ku nool maxaa dhibaato ka imaan kartaa laakiin injineer dastuurkii Soomaaliyeed baa qoraya saas oo xuquuq siinaya haye xuquuq siinaya waa maxay wuxuu leeyahay qof kastoo Soomaali waa Soomaali he qof kastoo Soomaali marka fi itaar maaragtay waxa weeye xuduudka Soomaali bay ma garat sug ani adigu sug waa wada hadlayna aniga waxaan ka hadlayaa wax nidaam casri ah oo tix loo raaci karo oona ay tahay diiwaangelinta dhabta ah dadka waddankaas gudaha ku nool qofkii yimaado sharci ha loo sameeyo jin ha loo sameeyo laakiin waa in la helaa codsiga aan sheegayo waxaan u malaynayaa marka ma waxa ka wadaa qofka hooyadii Soomaaliga tahay gabadha hadda ka hadlayso kale oo Jarmalka dhalashada qaatay dadka Soomaalida qurbaha degan ama Mareykan ama Ingiriis ama meel kasta markuu Soomaaliya tago wuxuu noqonayaa qof ajnabi ah ma yarto midaan ku sheegaya asaga مثلا ka dhigay special case baa jira waddankii dagaal baa dhacay dadkii dhan waa qaxeen duruuf dagaal dhacay taas special case sharciga waa keeni kara laakiin waxaan ku sheegaa مثلا ka dhig haddii oo maaragtay oo ninka oo qurbo joogto ahaa intaas sano ahaa waalid uu dhalay hadduu waalidkiisa u dago dastuurku waa u samayn karaa habka uu jinsiyadii dhabta uu ku qaadan karo laakiin مثلا ka dhig aniga Djibouti haddaan tago ajnabi baan ahay كلام كشنا تدان تجو أجنبي بان لكن دستور كاساس عبد موسى عبد موسى قفك واحد مشاكل بان اللي وذاك قفك أجنبي قاعد مركو دين ما اكتجو أو دين ما جوج جيرانية مركو دين ما اكتجو إن جوري ما قدرن كرو قفك أجنبي قاعد جوري وقدرن كرو لكن قف إيو ما قدرن كرو سويت واحد أحد ما كي لفصحي هذا كهر هل معلم باجر من كوجتين هل مجاله أو دين ما كمده وهذا جرم لقى هذا ما قاعد يسمى ممنوع يقف إيو يقول لك كذا كلام دائما ضد واحد تحي ودن كان Soomaaliya waa inay noqotaa tusaalihii Soomaalida tusaale waa inay noqotaa meel ay ku soo hirtaan hooygii Soomaalida waa inay Soomaaliya noqotaa baan qabaa sidaa darteed qof kastoo Soomaali meel uu aaminsan yahay inuu leeyahay oo uu ku soo carabi karo oo imaan karo oo deegi karo sida weligeed ba ahaan jirtay ama reer guura ahaw ama reer Djibouti ahaw ama reer Ethiopia ahaw ama reer Kenya ahaw Soomaaligu wuxuu ahaa qof aaminsan meesha uu ku soo carabi karo ku soo marka adigu injineer miyadan u jeedin in Soomaaliya ay noqoto hooygii Soomaalida wax fiican ay tahay look midan ku sheega aniga waxyaalaha aan ka tabanay adna waa ogtahay aniga waa ogahay anaga dhan waa ognahay aniga xaqayga meel uu jiro ma jira dadka ajaanibta yimaadeen ayaa sugan ku dhameystay maanta waa ku dhageysanay ma garatay marka waxa weeye adiga misaan baashtoorad leedahay eemasa wasiirad leedahay aniga aaway kii hadda qaxooti ahaan u yimaado wadankii u yimaado adaa ku daneynaya aniga iima daneynayo marka waxaan ku leeyahay haddii dastuur dhab uu jiro Soomaaliya equal opportunity for all the people hadda waxaad la hadlaysaa Soomaalida dhab baad la hadlaysaa ugu
dadka qofka ku dhageysanaya waa Soomaali oo dhan waxaan rajaynayaa mustawa Soomaali ku aad inaanu ka hadalno waayahay aniga dadkan u doodayo Soomaali weeye mustawahaas way qabaan waayahay engineer aad iyo aad wada maasan tahay fikirkaaga xor baad u tahay waana waxyaalaha dooda u qabanayno in qof walba fikirkiisa ka hadlo waaye laakiin waxaan ama muuqata inaanu kala saarno 4.5 oo cadaalad darro laga tirsanayo iyo Soomaalinimada ama u muuqata inaanu kala saarno hadde hadalkayga gunaanadiisu waxay tahay markii gobonimadii la qaatay 60kii dadkii horboodayay ayaa dadkooda u yeerteen marka waxaan leedahay aniga Djibouti markaan tagay ajnabi baan ahay laakiin qofka Djiboutiga baarlamaanka ku jira Faadumo adiga haddaan ku siiyo arrintaas fikirka bal hadda kala saar asxaabtan waxa weeyaan injineerka waxa waaye hadalkiisa wuxuu u dhamayaa raalligan iga noqdo haddii aan si khalada u dhaho yacni waxyaalaha Soomaali dhexdooda kaga maqan 4.5 iyo maxaan ku dhahaa waxyaalahaas oo yacni dadka ay maaragtay tabanayaan laakiin maanta waxaan oranayaa injineerka 4.5 ayaga ayaa bursiga dadkii majority-ga ahaabaa minority Soomaali maanta ka ah because 4.5 marka lagu dhaqmay everyone waa soo galeen Soomaali oo dhan baa waxashay sidayay baa gadaal maray ya marka taas hadday tahay macnaha aan fahmay taas xag ooga bax laakiin Soomaali isirkeena aan dhamaystirto injineer wax yarsid laakiin Faadumo adoo raaliga injineerku wuxuu leeyahay qofka Djibouti ka yimid baarlamaanka Soomaaliya ku jira anigana ajnabi baan ka noqonay haddaan tago taa maxaa ka leedahay maxaad ku qoracinaysaa injineerka taas hadday tahay waa runtiis haddii ninka Djibouti ka yimaada iyo ninka ka yimaada Nairobi iyo ka yimaada Ethiopia aan anagu ka nahay ajnabi annagana waa inteena la xadado taas waa ku raacsanahay absolutely Soomaali waa role model waa inteena la xadado waa raaliga hal waa role model raali ahaan wasiirka aan siiyo baarlamaankii waa inuu noqdaa mid wadani oo wadanka u dhashay waa inuu qaataa waayo aad iyo aad wad maasantiin waa ka xumahay Faadumo hadalkaaga macaan inaan kaa kala gooyo aad iyo aad uga xumahay qiimaha leh laakiin wasiir dooda waad maqlaysaa iyo waxyaalaha laga hadlay waad maqlaysaa bal hadda adiguna waa maqlayaa aniga dooda waxaan ugu jiray in laga hadlaayo dib eegista dastuurka marka dib eegista dastuurkana ma ku jirto yaa Soomaali ama looga hadlaayo runtii يعني article ku qoran oo qodob ku qoran oo qodobka 8aad ah oo leeyahay hal jinsiyada jirto wixii sharci ah oo laga soo saaray jinsiyadana baarlamaanka oo soo saari doono hadaayta Cabdi Muuse su'aal wuxuu yiri يعني la tashi ma gelinaya يعني sharci kasto oo la sameeyo wala tashi in la geliyo marka waqti imaanaysa ma naqaan sharciga la baas gareyn doono ma naqaano laakiin sharci aan wada tashi bulshada laga gelin yani lama sameyn karo waxna way noo soo noqday mid injineerka ayadu ah baarlamaanka Soomaaliya waxa ku jiro dalka Djibouti ah taas aad ugu khaldan runtii sababtoo ah dadka u leeyahay Djibouti waxa waaye beelay u lasheen beeshooda Soomaaliya deegaan ciisa la yiraahdaa wasiirkeena oo wasiir dowlaha difaaca حاجه بلينا ninka Soomaaliya ma jiro weligiis xamarka ma tagay Kismaayo kullu shay ku soo koray yani wuxuu ahaa wax badan oo wasiir dowladda difaaca baarlamaankeena meesha ku jira kulligood dad Soomaali ah laakiin Soomaaliya wax ka degan waaya wasiir marka aad u mahadsan qodob iga raalo injineer wasiirka waxa arrinta dastuurka dibagisa markaan u soo laabano ilaa iyo hadda qodobada ugu muhiimsan oo aad dhihi karto waqtigan aad u cariiri igu yahay aad dhihi karto qodobadaas weeyaan oo waxbaynu ka gaarnay wax ka bedelkooda ama dib eegistooda dhageystayaasha ma la wadaagi kartaa waxa ugu weyn hadda soo sameeyay waxa waa daayto waa inay shay ahaa inaan soo wada helnay afgarad هذه سامين كلها إن الله ما يستره يعني بدكو اللوبان يولك أقوين وسياسة معها واحد قوين يصير مردم لكن سيدا أقوين هلا وخلاص أنا سو مفتي كاسة تكسر شغيل حتى واحد نوع وحواي واحد أقوين أغلينا سمين وحواي أرميه فدريسي إن الله ما يسترنا لو معمول قبل هذا دولة اللي حيصير لي حيكون لي waxaa noogu soo horeyso bisha March 28
sidaa lagu qaban doonaa meesha la yidhaahdo baydhabo looga hadli doonaa waxyaalo fara badan kabacdi dhowrka washaraa la qaban doonaa waxyaalahaas inaan dhamaystirnaan rabnaa sanadkan haddaan dhamaystirno inta kale oo ah waxyaalaha mugdiga ku jiro oo luqadda ah iyo aan dhamaystirno dastuur fiican haysanayna oona albaabna u banaan yahay somaliland in lala kalaa wada hadal luuqadda aan soo hadal qaaday wasiir adoo iga raalliya mugdi miyaa ku jira luuqadda dastuurka aan hadda haysano waxaa jiro meelooyin oo luqadda iska hor imaanayso ama annaga keliya ma ahna dastuurada sareeyo dhan waxa waaye sida loo siiqeeyey ama mar la isku qabsan karaa marka kaas baa hadda nadiifina lagu hayaa guddiga madaxa banaan afrax madaxda u yahay ka shaqeynaya kaas waxaana tala kule iyagana guddiga baarlamaanka annagana waxaan ku leenahay korjoogtaan ku leenahay marka meel fiican hadda marsiinaya arrintan oo jinsiyadaana in dibna lagu dhigaa ficnaan lahayd waa mahadsantahay waayahay aad baad umahadsantahay wasiir aad iyo aad baad umahadsantahay wasiir dhegeystayaasha aan mar kale siiyo fursad بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa garyaqaan xamse geelle oo degan magaalada hargeysa haddii aan ka reebi dhibto doonta maanta ee ku saabsan dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya dib u eegitaanka lagu sameynayo ee doodiisu socoto runtii anigu waxaa soo jeedin laha in awoodda badan la saaro khilaafka dhex mara madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare oo noqday mid ragaadiyey hawshii xukuumadda muddada xilka loo doortay ay qaban lahayd taasoo isagu maantana taagan tan iyo markii dowladii ugu horreysay wixii burburka ka dambeeyey 2000 lagu sameeyey magaalada jabuuti madaxweyne loo doortay cabdiqaasim salaad xasan gudoomiyana loogu doortay cabdalla deero isa mushkilada koobaad ee taagneed waxay ahayd awoodda gudoomiyaha ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha isku qasnayd mooshinna la iska hor keeno qodobkaasi haddii dastuurka lagu saleeyo oo muhiimadda koowaad laga dhigto wuxuu noqon karaa dastuurkaasi mid guulaystay laakiin waxaan soo jeedin lahaa in la iska ilaawo baasaboorka soomaaliga ayaa qaadanaya soomaalida jabuuti ku nool ma kuwa kenya ma kuwa etoobiya magacaygu waa muxiidiin beledka waxaan joogaa boorama waan salaamayaa martida dooda qodobka ah dib u eegista dastuurka dalka soomaaliya waxa weeye qodob mudan in laga doodo sidoo kale waa arrin mudan in la dhaqangeliyo waxna laga bedelo nidaamka dastuurka soomaaliya u yaallo oo ah mid aan hadda u oolin sidii cadaaladda ahayd ama sidii lagu wada qancayay ama yaanan laguba wada qancin marka si guud loo eego mid dhexdhexaad u ah ummadda soomaaliyeed waxaana hubaala in xagaldaac fara badan uu ku jiro waxaana tusaale u ah dowladda federaalka soomaaliya waxa weeye maamulka somalilan ay xudxudanayso wuxuu ku andacoonaya dastuurku ma saxsan oo annaga namaba siin karo madaxweyne iyo ku-xigeen waayahay waa mahadsantii dhegeystayaasha kalena aad baan ugu raaligelinayna inta haddaynu fursad sii weyno waxaan jeclahay inaan soo koobo ma ka hadlayn hadda khilaafka taagan baarlamaanka soomaaliya laakiin dhegeystayaasha qaarkood waxay soo hadal qaadeen arrinta ah in dastuurka uusan kala saarayn awoodaha dastuurkan hadda la soo wado arrintaasi ma damaanad qaadaya wasiir adoo isoo koobaya daqiiqad in ka yar adoo raalliya waxyaalaha hadda lagu balansan yahay waxay ka mid tahay meelooyinka laisleeyahay khilaafaad ayaa ka jiro oo mar walba soo noqnoqdo in la kor istaago say ku dhamaanaysa ma aqaan maxaa waxyaalahan waa wax oo laga galaayo wadatashi laga galaayo waay laakiin siduu hadda u sheegay dhegeystiya hadda soo hadlaayay waa arrin muhiim oo hadda aada looga hadlayo waxaa kaloo aada looga hadlaya oo jiro hadda aada usoo noqnoqonayso madaxweyne la dooranayo in shicibka uu soo doorto intay dooran lahaayeen 200 oo parliamentarian ah waa mahadsan tahay wasiir waaya wasiir waqtiga aad cariirigu waxaa kaloo laga hadlayaa xildhibaano inay xildhibaano noqdaan waa mahadsan tahay wasiir aad waa in la kala saaro xildhibaanka iyo wasiirku aad baad u mahadsan tahay cabdi muuse adoo isoo koobaya 20 second dad kasta oo Soomaali ah oo hadda i dhageysanaya min madaxweyne dowlad goboleed ilaa iyo mas'uuliyiinta wasiirku ka mid yahay waxaan xasuusinayaa waxaynu gacanta ku hayno oo ka sheekaynayno waa wax kun sano jiraya aynu ka fikirno aynu ka taxadarno injineerisu 10 second adoo raalliya aniga kule waxaan rabaa dastuurka oo Soomaaliya loo soo bandhigi doono waa inuu ahaado inta kumanaal sano soo socda inuu ka hirgalo wasiirkan waxaan leeyahay maxad igu qancin kartaa dhibaatadan i haysato aniga aan kuu sheegayo
waayo baarlamaankii ma lihi dhulkii waa la qaatay wixii dhan waa la beeray maxaad u qancin kartaa wasiiru waa waqtiga cariiriga kaama jawaabi karo wasiirka faado adoo ii soo koobaya 20 ilbirqsi haye waxaan odhanayaa oo kusoo gabagabeynayaa in ay dastuurku uu noqdo wax ummadda soomaaliyeed masiirkeedii ah oo ka talinaya ilmaheena dhalna ilmihiisa kala qarniyo waa maasantahay Faaduma aad iyo aad u maasantahay aad u maasantahay dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal barnaamijkii waxaan u mahad celinayaa wasiirka dastuurka Cabdi Xoosh Jibriil Faaduma Diiriyo ururada bulshada Puntland ka tirsan Cabdi Muuse studio wada ila fadhiyay iyo engineer Yaro isna studio BBC wada ila fadhiyay Axmed Cabdi Nuur barnaamijka waxaa soo saaray Cabdi Nuur Sheekh Maxamed nabadgelyo